حسن شيخ محمود. sida lagu daabacay jariidad ama magazine lagu magacaabo Time 100 oo inta badan wax ka qorta boqolka qof ee adduunka ugu saameynta badan hadii ay ahaan lahayn hogaamiyaasha fanaaniinta iyo kuwa la midka ayaa waxa galay kaalinta 57aad ee hogaamiyaasha ugu saameynta badan adduunka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. magaziinka qiimeynta ku sameeyay boqolka hogaamiye ee adduunka ugu saameynta badan ayaa waxa marka hore ka soo sheekay doorashadii lagu soo baxay kumeel gaarnimada iyo sidii loogu soo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda dastuurka qaranka waxa ayna sheegtay in doorashadii 2012 ay ahayd soo afjarkii musuqmaasuqa iyo ka soo bixitaankii xilligii talin jireen hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya soo xukumi jiray muddo 20 sano. waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya intii dooratay iyo intaan dooraninba dulqaadka ay muujiyeen waqtigii adkaa ee ay socotay doorashada. waxa magaziinkan ay sheegtay in ammaanka magaalada Muqdisho uu soo wanaagsanaanayo iyadoo ku dhawaad 17,000 oo ciidanka midowga Afrika ah oo ku dadaalayaan inay ammaanka sugaan inkastoo ay jiraan bay tiri magaziinka xoogaa carqalada ah maadaama wadan 20 sano burbursana aan mar qura ammaanka iyo kala dambeyntii loo soo celin karin 20 sano oo ruwaanta dagaal ay ku jirtay waxa ayna tusaysaa bay leedahay Time 100 in wax walba dib loo soo celin karo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu riyaala shaqooyin aad u badan oo adana aad u muhiimsan oo ah sidii ula jaanqaadi lahaa taageerida dibadda ka imaanaysa iyo shakhsiga Soomaaliga oo noqday qof isaga kaliya xukuma. hogaamiyaha Soomaaliya ee dastuuriga ah muddada 20 sano ah kadib waa sida ay qortay magaziinka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu noqonayaa hogaamiye ku dayasho mudan oo Afrikaan ah kalsoonida uu sameystay awgeed taas oo ahayd inuu ka soo jeediyay indhihii arki jireen dagaallo iyo isbarbaryaca Soomaaliya caalamkana u jeed Soomaaliya oo deganaan iyo horumar ku tilaabsanaysa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynihii ugu horeeyay oo dawlad rasmi ah madax u noqda muddo 20 sano kadib.